السلام الله عليكم سودو هذا صاحب يال على مدى لغو قرتو قفك أن كربين أما وحيس أحكو هاي إن هذا قوتين إنه قفك تعالي أو وحيس كو قبايين كله وواحد كو دوخ كرتو هدي أنا أقول على مدى لغو قرتو إن قفك سكو حيسين أيو هي إن كله وحرجين إنه برنامج كنكو أنفع دونه طبعا كأيانو قد قال دونا وكون إدغي سابون qodobka koobaad qofka oo hamaasada wax badan marka aad wada joogtaan dadku waxay hamaasadaan marka xad yar oo oxygen ah gaadho maskaxda tanna waa sababaha marka uu qofku wax ka xiisa dhaco hadii qofka la joogtaa uu hamaasado wax ka badan hal mar ugu qofkaasi inaanu ku xiiseenin la joogaystaada qodobka labaad jawaabo gaagaaban oo joogto ah dadku waxay soo kooban jawaabahooda marka ay mashquul yihiin hadii aad aragto qofka oo hadallo kooban leh jawaabta ku gaabinaya ugu qofkaasi inaanu rabin inuu kula sii hadlo taasina ay muujinayso in xiisaha meesha ka sabaxay qodobka saddexaad qofka oo aan su'aalo ku weydiin badana qofku waxa uu su'aalo qof weydiiyaa marka uu doonayo inuu qofka wax badan ka ogaado aadna u xiisaynayo hadii uu qofku wax xiisaa ku hayn dib kuma haysan inuu su'aal ku weydiiyo inaanu ku weydiinba qodobka afraad qofka uu dhowrkii cishaba ama toddobaadkiiba hal mar kula soo xiriira marka uu qofka la xiisaynayo waxa uu jecel yahay inuu badana la xiriiriyo balse hadii aanu aragno qof dhowrkii cisha ama halkii toddobaad marna soo xiriirinaya ogow inaad qofkaasi agtiisa wax qiimo ka lahayn qodobka shanaad qofku aan ku dadaalin is aragiina hadii aad aragto qofka aan waqti bixinayn isla markaana aan danaynayn inaad is aragtaan waa calaamad muujinaysa in qofkaasi ahmiyad aanu ku lahayn agtiisa qodobka lixaad qofku aan ku tusin tayooyinkiisa fiican tani waa calaamad weyn oo tusinaysa in qofku wax xiisa ah ku qabin marka ugu horeysa ee aad qof isbarataan waxa tusisaa tayooyinkaaga wanaagsan iyo meelaha aad ku fiican tahay waana ugu faantaa dabcan balse hadii aad aragto qofku aan ku sheegay ogow inuu xiiso halka ku dhamaaday qodobka toddobaad qofku oo marmar muujiyay inuu ku xiisaynayo hadana dib loo waayay hadii aad aragto qofku oo markuu soo xiisaynaya muddo kadibna goosanayo oo la waayo waxa jirta suurtagalnimo weyn oo ah in qofkaasi wax xiiso ah ku hayn qodobka sideedaad qofka oo aan ku soo jawaabin marka aad la hadasho qofka hadii baraha internetka meel walba uu ku jiro aad ka xiriiriso hadii uu hore kugu soo jawaabin ogow qofkaasi wax xiisaa kuma hayo laga yaabaa inuu mashquulsan yahay balse marar badan hadii saa dhacdo qofkaasi isku day inaad adna dib uga go'do ka sagaalaad qofka oo si fiican kula hadla marka aad xiriiriso balse aan isagu soo xiriirin hadii qofku kugu jawaabo si fiican marka aad la hadasho balse aanu isagu soo xiriirinayn ogow waa calaamad weyn oo tusinaysa in qofkaasi agtiisa wax qiimo aad ku lahayn qodobka tobnaad qofku oo aan dib u arkin in dadka kale ee uu ka helo kaaga sheekeeyo hadii wiilka aad la socoto uu kaaga sheekeeyo hablaha kale ee uu la sheekaysto ee uu ka helo sidoo kalena gabadho aanay wax dhib ah u arkin inay kaaga sheekayso iyadna sidoo kale wiilasha ay ka hesho waxay calaamad weyn oo muujinaysa in wax xiiso ah qofkaasi ku hayn waxaan rajaynayaa inuu barnaamijkan ku anfacay fadlan hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar gambaleelkana furo aad iyo aad baad u mahadsantahay